رزقي في السماء فأنزله إلهي ودي إرزاقدي يدتهاي سماده حقيقة هدي جرتو إلهي ويسودك وإن كان في الأرض فأخرج إلهي ودلك هدي كجرتنا إرزاقدي يدلك يقصو صار وإن كان بعيدا فقربه هدي يقفكتهاي إلهي ويسودوي إلهي ويسودوي وإن كان قريبا فيسر هدي أي دودهayna إلهي ويفوده إرزاقدي هذه وكو أقمر مريسو منا أركتid منا سميسن كرتid waxaan soo xasuustay Soomaaliya mar waxa la iga sheegay meel maqaaxi dhagax oo la jiro lagu fariisin jiray oo dadku iska baahnayeen dahab inuu ka buuxay oo markii qolihii dahabka baaray u imaadeen iska qaateen gaari saarteen irsaaqadii baa meesha ka buuxdo lagu dal fursanaya shaaba lagu dul cabi jiray qolaa irsaaqad ka dhigatay Soomaarkaysid marka irsaaqada iyadoo ku dhow ayaa marmarka qaar aadan helaynin inuu halishiinayn waa irsaaqadaadi marka ilaahay ka bari inuu irsaaqadaadi hadii ku dhowdahay ilaahay uu sahlo saad ku heli وإن كان قليلا هدي يرتحيون وفلنين إلهي وبدي إلهي يواصل فكثر إلهي يواصل وإن كان كثيرا فبارك لي فيه ماشي ويمر ماشي لو هوبتي بدن ay ku hoobteen waa halkan وإن كان كثيرا تطبع إلهي وحي كبريان مال السي إلهي ومال السي حق آت دبد وضوف حق كسور حق قول كنس حق سيديال حق وردين أرض بكل شران عندنا وحاويا وضدك وعلى عالك بدن وضدك ومارك أسلحة كون وفقيرين بقى يا قاب يقول لك ما يمرك أركتي راعلك وحكي مركز قفك يعني وحي إلهي سبحانه وتعالى سوق لي يقولي السماوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إن شاء الله تعالى وحا halkii ka sii socdo ducooyinkii mustajaabada ahaa ducadan aanu qaadanayno cashirkan aanu qaadanayno wuxuu daba socdaa cashiradii hore oon hore idinkugu iclaaminay qof walba wuxuu jecel yahay inuu hanti yeesho maal inuu yeesho irsaaqad in loo waasiciyo asbaabteedii marka waa inuu la yimaado irsaaqad in lagu waasiciyo doonaysaa sooma asbaab bay leedahay asbaabtii waa inaad la timaadid asbaabteeda waxaa ka mid ah inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala barido inaad wax xalaala ilaahay subxaanahu wa tacaala ka barido لأن حلاشو waxay kugu hanuuninaysaa jannada ayay kugu hanuuninaysaa maal xalaala inaad kasabato oo meesha loogu talagalay inaad ku bixiso inaad wanaag iyo khayr inay ku horseedo jannada sida ay kugu geliso ayaa loo tabcanayaa maalka xalaasha sida awgeed darsigeena wuxuu ku saabsanaan doonaa laba duco وأنا العلنين قفك إلهي سبحانه وتعالى كبر يوك أجيبي عن عشر كوكو قلنا مرك دعاء الرزق الذي لا يرد دعاء إرزاق قدر أنا العلنين والله أقبل يا غفر markaad ducaysanaysid waxaad leedahay waa maqliyo muuqaal inta badan waxaad aragteen yani in casharada saan oo kale afka un leedinkaga sheego laakiin iyadii waa muuqaal maqliyo muuqaal ah ayaan idinkugu talagalay insha allahu tacaala si aad uga bogataan ood u fahantaan una akhrisaan ilaan waxa sheekhu uu akhrinayo waxaa laga yaabaa in aad akhrin weydaan baa dhici karta marka isku day inaad akhrisaan insha Allah taala watan ayadiyo diyaarsan اللهم ارزقني إلهي إرزاق إلهي إرزاق كلمة تجنانيسة ماي إرزاق الإرزاق أيوة نوعه
باتوتال رزقا إرزاقت واسعا بلارا واسعة هي نوعي هدرة حلالا طيبا مد حلال طيبا ونكسا هي من غير كد وانا لو رفادين aad loogu tacbin ugu dhibaatoonin work to hard work hard aanan aad loogu maartay dhibaatoon wastajib ducaa'i ilaahay ducadayda iga ajiib inaad ilaahay barido waa baryo in laga ajiibana waa baryo kale inaad ilaahay barido bahaya oon lagu soo celinin dadka waxa ugu khasaaro badan qof ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmaha u taagtay oo dhibaataysan oo haddana aanan laga aqbalaynin qofka ugu dhibaatada badan weeyaan marka ilaahay ducadayda ha soo celinin waan ku baryay ducadayda ilaahay ha soo celin waacuudu bika min alfaqri waddayn ilaahay waxaan kaa magan gelayaa fakriga cayrta ilaahay waan ka magan gelayaa waddayn iyo deynta deyntu dhibaato badan bay leedahay qofkaas oo deyn qabo hadduu dhinto laga cafinin dhibaato badan bay leedahay weliba hadda waxa weeye dadku waa lagu fidnoobay oo qofkii asagoo awoodo hadduu deyn qaatay buu haddana deynta bixinaynin dhibaato aad u weyn bay leedahay marka ilaahay baa laga magan galaa waxyaalaha ilaahay laga magan galay ka mid tahay deyntu inaysan kula goyn iska bixi xornimo ku mar magaalada dad deyn qabo waxaa arkaysaa dhumanaya hebel deyn buu leeyahay oranaya lama baana waxaas allahuma yaa raasiqa saa'iliin ilaahayow midka irsaaqo kuwa weydiista yaa arxam almasaakiin kan u naxariista dadka masaakiinta ah ويا ذا القوة المتين متك قوة أود صاحبك ويا خير الناصرين هو انت وح غرغرت متك او خيرك بدنو انت وح غرغرت متك او غرغرك بدنو ناصرك اهو يا ولي المؤمنين متك وليga oo ah u dhow dadka mu'miniinta ah يا غياث المستغيثين وغرغارك طلبك غرغارو إياك أذيك أيانا نعبدك عابدنا وإياك نستعين أذيك أيانا قال ويدي سنينا قال اللهم سفعان ودقي سمرك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله إلهي ودي إرزاقدي ضدتهاي samada xageeda haday jirto ilaahay uu isoo deji wa in kana fil ardi fa akhrij ilaahay dhulka haday ku jirtana rasaaqadeeda dhulka iga soo saar wa in kana ba'idan faqarrib haday iga fogtahay ilaahay uu isoo dhaweey ilaahay isoo dhaweey wa in kana qariban fayassir haddii ay ii dhowdahayna ilaahay uu fududeeyo irsaaqadaadii baa ku ag marmarayso mana aragtid mana samaysan kartid waxaan soo xasuustay soomaaliya mar waxaa laiga sheegay meel maqaaxi ah dhagax oo la jiro lagu fariisin jiray oo dadka iska baahnaayeen dahab inuu ka buuxay oo markii qolyihii dahabka baaraya u imaadeen ay iska qaateen oo gaari saarteen irsaaqadii baa meesha ka buuxdo lagu dal fursanaya shaaba lagu dul cabi jiray qolaa irsaaqad ka dhigatay soo markaysid marka irsaaqada iyadoo ku dhow ayaa marmarka qaar aadan heleelaynin inuu halishiinayn waa irsaaqadaadi marka ilaahay ka bari inuu irsaaqadaadi haddii ku dhowdahay ilaahay uu sahlo saad ku heli lahayd وإن كان قليلا هذا يرتاحون وفيلنا إلهي إلهي واصل فكثر إلهي واصل
وإن كان كثيرا فبارك لي فيه ماشان وي marka meesha lagu hoobtay dad badan ay ku hoobteen waa halkan وإن كان كثيرا dad baa ilaahay waxay ka baryaan maal si ilaahay maal si xagga aad dibadda u dhoof xagga ka soo xagga gurka dhis xagga sidan yeel xagga waa ordayeen orod bay ku jiraan hadana waxa weeyaan waa dadka ugu calaalka badan waa dadka ugu maaragtay asleeda kuwan waa faqiiriinba ya qaab bay u dhaqmayaan markaad aragtid raacalka waxa ka yeeray markaad aragtid qofka yani wuxuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo geliyo gurigiisa maaragtay ku biisha caruurtiisa dhex taagan waxay soo helo marka aad ku qanacsan kaasaa dhaamaad tuuba dhaamaa ficlan waa habi marka maalka ilaahay uu ku siiyey ee badan u ducee inuu ilaahay ku barakeeyo laakiin haddii maalkii badan yahay barakadina laga qaado wuxuu ku taraya laa yanfac walaa awlaadii inuu ilaahay ku barakeeyo reeraha inuu ilaahay ku barakeeyo wax walba khayr inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku barakeeyo ilaahay ka bari hawn isdhihin dii waxaan إنما أوتيته من العلم ودد كان كفي عنها وحالها أنا هنتدن دد كان كفي عنها وألوها لك وقتروي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى أنت درس كلكم كل منه إذا سيدنا كتجي إن شاء الله تعالى السلام bulshooy bishaaro war heede waa maxay bishaaradu soo moogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayay oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex darayeen haddaba ina keen aan booqanay Dr. Axmed Cilaaj laga raysay wixii hore Al-Hilaal Herbal Online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiif ah bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn sidoo kale Al-Hilaal Herbal Online waxay leedahay gargaarka degdega ah oo qofka xanuunsanaya gurigiisa lagu soo daaweyni Al-Hilaal Herbal Online waxa kale oo laga daweyn macaanka dhiigkarka rheumatismka maqaarka kaliya xanuunka massage toobin waafaqsan sunnada allergiga gastriga iyo daawo ka caawinaysa dhalmalaanta jinka iyo umusabiyaanka xarunta Al-Hilaal Herbal Online waxay ka daaweynaysaa riyooyinka baqdinta leh iyo qarowga ayada uu diyaar kugu yahay specialist Dr. Axmed Cilaaj daawadiisana lagu caafimaaday haddaba waxba yaan hadal kugu daalinine soo booqo xarunta Al-Hilaal Herbal Online oo ku taala xaafadda Islii Second Avenue gaar ahaan qaybta 7 Street wixii faafayntaasi dheer kala xiriir telefoon lambarka 7 7 7 7 oo laga heli karo Dr. Axmed Cilaaj